kuma raba ay leedahay waxa ka dambeeyay uf bay leedahay war xasanow adigana uf baa laga yiri waa markii labaad oo madaxweynaha jamhuuriyadda uu mayg u qaato waxa weeye beel isagoo sida youtuberada oo kaleeto reaction ka bixiyo hadba ficilkay sameeyaan beesha xawaadle markii labaad ayuu mayg u qaadahayaa xasan sheekh maxamuud hadda ka hor kuma raba ay leedahay markii uu lahaa waxa uu mayg u qaatay beesha xawaadle oo shir ku qabsatay magaalada Nairobi oo aayaheeda ka tashanaysay maantana waxa uu mayg u qaatay isla beesha xawaadle oo iyaduna waxa weeye iyada kaligeedba ma aha in reer Hiiraan oo dhan ay u dabaaldegayeen calankooda sanad guurada Hiiraan isteed u dabaaldegayeen ima dhihi kartid madaxweynuhu uu lama jeedin adankeedii lama jeedin ma dhihi kartid sababtaaduna dhihi karin ku sheegaa bishan October iyo bishii ka horeysayba maalmo badan ayaa soo maray oo waxa weeye qabiilooyin badan ay calamo u dabaaldegeen oo aad u fara badan ayaa soo maray inta madaxweynuhu reactionkiisu bixinay caanow ku yahay masaajidka waa galay reactionkana waa bixinay kama hadlin qalan iyo calan iyo qabiil kama hadlin laakiin tii Hiiraan isteed markay imaatay oo madaxtooyadii horteeda lagu dabaaldegay oo meel walba la ruuxay waa iscelin waay marka ayuu mayg qaatay horta calanka Hiiraan isteed calan qabiil ma aha xasanow xawaadle mayg u qaatay daarto laakiin Hiiraan isteed calankeedu calan qabiil ma aha marka koobaad maxaas ayaad noogu timid waxaanu ku keenay reer Hiiraan oo dhan oo Hiiraan isteed ku midaysan ku keenay waxa tiri marka calankiina haysta Hirshabeelle inay maamul ebeera tahay oo dhintay inay tahay anaa marqaati ka ah oo maamul jira aysan ahayn shakhsi jeebkiisa ku jira inay tahay anaa marqaati ka ah tiri ilaahay beeniga qori ma hortaadaan taagnaa Hiiraan isteedina haysta tiri maalintii aan maamulkaas inaan dib ugu laabano ay noqoto hadda dagaal aan nahaaye ayaa wada hadalkeena ka soo bixi doontaa inaad ama maamulkiina dhisataan oo wadataan ama wax laga bedelay Hirshabeelle sidaa ayaad nagu tiri ilaahay oo eray beena kuma darin hadda Hiiraan isteedii calankii aad haystana tiri sidii baan u haysanaa maalinta war calan qabiilad wadiina waxaanu eber waaya iska tuurana ma dhihin hadda markii la buusay calankii reerkaadu isxijinayeen macaadifadii qabiilka ku qaaday Hirshabeelle shacban beeshaada hayna u dabaaldega ma aragtay war degmooyinkii deegaanada oo hadda Hirshabeelle ku magacaaban tahay oo Hiiraan weyn oo dhan ka kooban ama xataa shabeelaha dhexe ka kooban shacab u dabaaldega oo isxijina oo annaga leh ma aragtay oo aan beeshaada ahayn waa maya isaguna calan beeleed oo iska noqday haddii Hiiraan isteed calan beel noqday waxa ka daran oo si ka daran calan beel u ah midka Hirshabeelle caadifadii baa ku qaaday fiqitolkiisa kama jannata gaa leeyahay kula yaabe mayno hadda adigoo reer hebel mayg qaadatay annagoo reer hebelaha mayg ku qaadanayna madaxweynaha qaranka ku tixgeli mayno haddii kale si madaxweyne qaran u hadal si madaxweyne qaran wax u gal si madaxweyne qaran dadkii is haystay siyaasadaha is haysto u dhaxdhaxaadiyo u gal oo u xalli oo xal u keen laakiin reaction inaad masaajid la gasho ama aad meel la gasho ood kaamira la soo fariisato waree hebel oo u faatihiin abwa haddaan anaga reer Hiiraan isteed calankan farmaajan san ka gelinay farmaajo u foo yiri adna u faanahan fagaaray ahayd farmaajo haddaad reerkan uftiri adna u faan ku niri mana soo laabanay sidaan dhahan dagaalkan ku qaadnay xildhibaanadan ka xoognay waa ku guuleysan isageena u faanahan haddaad adigu ufna tiri uf bay leedahay annaguna uf baan ku leenahay adiga maahana 10 madaxweyne oo ka dambeeyay haday yimaadaan calankaas sanka ka gelinayna kii u fiiraadana adna u faan leenahay warku meeshaas uu ku dhan yahay mayga waa noo wada mayga